بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiintan ah what is the scope of finance ama baaxadda financiga. Scope of finance waa mid aad u ballaaran misana ka kooban dhinacyo kala duwan sida maamulidda lacagta, maalgashiga iyo ilaha dhaqaalaha. Sidoo kale scope of finance waxaa xooggan lagu saaraa go'aamo ku saabsan sidee loo qoondeeyaa dhaqaalaha, raasumaalka loo ururiyaa, loona lafaguraa khataraha iman kara iyo sidoo kale iyo sidee loo abuuraa faa'iido. Markana aan isla aragno qaybo ka tirsan dhinacyada kala duwan ee financiga. Ogowna qaybaha aan ku xusi doono meeshan mid waliba waxaa loo qaataa maada ahaan oo qaarkood xitaa waxaa loo qaataa 2 semester oo kala duwan. Midaasna waxaan uga gol leenahay inaan isla ogaano in xogtooda oo dhammaystiran aanan meeshan kusoo gudbin karin, balse ujeedkeenu waa in aan helno fikir guud oo ku saabsan baaxadda financiga waxa uu ka kooban yahay. Haddaan ku horumarno kow waa corporate finance ama maaliyadda la xiriirta shirkadaha. Haddaba shirkadaha waxaa laga rabaa inay go'aamo maaliyadeed oo kala duwan ka gaaraan howlaha ka socda shirkadda sida qiimeynta maalgelinta. Tusaale, shirkadaha waxa ay haystaan fursado maalgelin oo kala duwan. Haddaba waa in loo go'aamiyo mashruuca ugu fiican oo value-ga shirkadda sare u qaadaya waa midkee 1 2 3 hadba intay awoodeeda gaarsiisan tahay. Haddii rabbi idmo sharaxaadaha kooban ee soo socda ayaan uga soo hadli doonaa capital budgeting, working capital, financial planning, capital structure. 2 waa investment banking. Hadda koor ayaan qeexid kooban kaga soo hadalnay, waxaadna ka heli kartaa lifaaq hoose. Bangiganna waxa uu shirkadaha waaweyn iyo dowladaha ka gacan siiyaa sidii ay lacag uga heli lahaayeen maalgashatada, ha ahaato in la soo saaro stock ama bond, ama haddii ay rabaan oo kale shirkado waaweyn inay iyagii isku milmaan ama ay mid gadato midii kale. 3 financial markets. Iyadana hadda koor ayaan sharxaadaha kooban uga soo hadalnay, waxaadna ka heli kartaa lifaaq hoose. Waana suuqa lagu kala iibsado warqadaha maaliyadda. Haddaba qofka portfolio manager-ka ah waxaa dhacda inuu go'aan maalgelin gaaro kadib marka ay shirkadda samayso xog ururin suuqa ah ayna darsaan khatarta ka imaan karta maalgelinta. Haddaba qofka maamulka ah asagoo tix raacaya xogta ayuu sameeyaa maalgelinta sare u qaadi karta faa'iidada ay helayaan macaamiisha u dirsatay inuu maalgelintaas u sameeyo. Macaamiishan waxa ay noqon karaan shaqsi ama shirkad. 4 personal finance. iyana waa qayb kale oo ka tirsan scope of finance. Waxa aynu xoogga saartaa maamulidda iyo maareynta maalgelinta la xiriirta shakhsiyaadka iyo qoysaska, sida samaynta kayd, maalgelin iyo u diyaargaroobidda marxaladda howlgabnimada iyo wixii la halmaala. 5 risk management. Maareynta khasaarooyinka ama khataraha. Qeexidooda oo kooban hadda koor ayaan ka soo hadalnay, iyana waxaa ka heli kartaa lifaaqa hoose. Waxaana ka mid ah caymiska shakhsiga ah, ganacsiyada, hantida, maalgelinta meelaha kala duwan iyo in laga gaashaanto khasaaraha iman kara iyo wixii la halmaala. 6 financial analysis ama falanqaynta maaliyadda. iyana waxaa loo qaataa maada ahaan, waxa ayna la xiriirtaa in la darso xisaabaadka lagu qoro financial statementiga, loogana soo dhex saaro xog wax ku ool ah oo lagu ogaado meesha ay shirkadda ka liidato ama ay ku fiican tahay iyo mustaqbalka meelaha la rabo in xoogga la saaro iyo wixii la halmaala. Gunaanad, laamaha ama baaxadda financiga inta aan ka soo hadalnay way ka ballaaran tahay oo waxaa ka simid ah banking, financial planning, financial consulting iyo kuwa kale. Balse ugu yaraan waxaan ka haysanaa fikir guud dhinacyada ay ka kooban tahay ama walxaha soo gala scope of financiga. Xog dheeraad ah oo ku saabsan stock iyo bond fadlan ka dhigayso lifaaq hoose oo aan hadda koor uga soo hadalnay. Mahadsanidin, waa inoo markale haddii rabbi idmo.